بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waxaan saxaafadda aan rabnaa maanta inaan u soo bandhigno in maanta bishu tahay bishii February aanu shir ku wada galay anaga bacmisharka iyo guddiga ballaarnayd ee ka shaqeynaysa qorshaha dejinta ama qiimo yeelista shilinka Soomaaliland iyo ganacsato ballaaran oo reer Soomaaliland oo kuwa dalka waxna soo dejiyay waxna dhoofiya kulankaas oo ahaa kulan isfaham iyo xog waraysi iyo sidii qorshe guud iyo nidaam jawi wada shaqeynad oo wanaagsan oo isfaham ah looga yeelan lahaa hawshan ama qorshahan la rabo in qiimo loogu yeero shilinka Soomaaliland run ahaantii marka ugu horeysa wasiir ahaan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa sida quruxda badan ee wanaagsan ee u soo ajiibeen kulankan iyo sida gacanta buuxda ay nooga siiyeen waxaan gudi ahaan aan xaqiijinayaa oo u sheegayaa shacbiga reer Soomaaliland bacmisharku muddadii hawshan aynu wadnay inay si qurux badan oo wanaagsan oo qurux badan inay nolol shaqeeyeen waxaa jira ganacsato fara badan oo lacagtooda shilinkii Soomaaliland ee faraha badnayd ee bangiga u yaalay aanu xayirnay oo aanu joojinay anagoo ka duulina qorshahan si wanaagsan oo la jeclaan bay noogu raaceen oo ay nagala shaqeeyeen si qurux badan oo wanaagsan baan muddadii hawsha ku jiray u wada shaqeynay maantana kulankayagu wuxuu daaraa sidii aanu qorshe hawleed wanaagsan oo qurux badan oo isfaham leh oo salka ku haya sidii shilinka Soomaaliland loo wada isticmaal lahayd bulshada Soomaaliland ay noqon lahayd mid shilinkeeda aaminta iyo hadday tahay ganacsataba iyo hadday tahay dawladba aanu guud ahaan uga wada shaqeyn lahayn wuxuu ahaa kulan wanaagsan oo isfaham ku dhamaaday kulan wanaagsan oo la isu caqli celiyay kulan wanaagsan oo wax la isugu tusaaleeyay guud ahaan waxaan oran karaa jawigii muddadii saacadaha aanu ku wada jiray shirka waxaanu qaadanay dareen isku mid ah oo aanu shacbigana u sheegayno inuu dareenkaasi yahay mid aan u sheegayno in aanu dhammaantayo heegan u nahay inaanu shilinkii Soomaaliland qiimo u yeelno oo aan u wada guntano haddaanu nahay ganacsatada haddaanu nahay mas'uuliyiinta haddaanu nahay qaranka oo dhan sidaa awgeed waxaanu leenahay maanta laga bilaabo waxaanu nahay dad isku dhinac ah awalba isku dhinac waanu ahayn hase yeeshee waxa wada fulinta qorshaha hawleed iyo isfahamka joogtada la yeelanayo ayuunbaa laga ballamay waxaa gunta loo dhigay qorshe hawleed la doonayo in muddada soo socda lagu wada shaqeeyo oo ah kulan joogto ah iyo magaranaysaa xog waraysi joogto ah iyo hadba xaaladdu halkay marayso in laga wada tashado xukuumad ahaanna aad iyo aad baan ula dhacsanahay qaabka macaamil iyo nidaamka iminka ganacsada wax soo dejisa iyo shilinka sida ay shilinkii Soomaaliland suuqa magaranaysaa suuqii xorta loogu soo celiyay iyo sida way jiraan wali dhaliilo ku jira hawshii dawladdu soo saartay oo ah dhinaca magaranaysaa suuqa madow laakiin waa wax ka bixi doona muddooyinka dhow ee soo socda uu qalay doona shilinka Soomaaliland annagu xukuumad ahaan waxaanu hakinay isticmaalkii shilinka Soomaaliland oo waxaanu yareynay supply-gii waxa weeye waxaanu saarnaa mushaharkii running cost oo kali ah waxa ay daaran tahay inaanu aan qiimo u yeelo shilinka Soomaaliland ganacsataduna guud ahaan waxay nala qaateen qorshahaas si qurux badanna way noogala shaqeeyeen muddadii imika ay nala shaqeeyeenna waanu uga mahad celinaa sidii wanaagsan ay noola shaqeeyeen salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah walxamdulillaah wasalaatu wasalaamu calaa sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbi wasallam marka hore wasiirada guddida madaxweynuhu xil saaray muxuu ahaa la dagaalanka qiimo dhaca ku socday shilinkeenna uga mahadnaqaynaa inay muxuu ahaa siday muxuu ahaa noogu marti qaadeen si aanu arrintaa tale uga geysano muxuu ahaa soo jeedintoodii iyo dadaalkay sameynayeenna uga mahadnaqayna runtii muxuu ahaa ganacsatada iyo xukuumadda Soomaaliland iyo reer Soomaaliland markooda koobad laba qolo ma hay qolo kaliyeena dan kaliyeena wada leenahay shilinkana xukuumaddu ma leh Soomaaliland baa leh waa wax inaga dhaxeeya oo in wada leenahay hadduu qiimo yeesho dhammaanteen buu qiimo inoo wada yeeshay hadduu qiimo dhacana dhammaanteen buu inaga wada qiimo dhacay sidaa awadeed arrin cid gaara lagu duraamanayo ama laga baryayo inaynu ilaashano dantaa inaga dhaxaysa maaha marka loo baahnaa wuxuu bay ahayd muxuu ahaa dadku dee aragtida iyo afkaarta iyo talada way ku kala gedisanaan karaane dadka intay ka dhaxaysa hawshaasu ilaalinteedu dantaas ilaalinteedu intay ka dhaxaysa inay isu yimaadaan ay ka wada tashadaan sida loo ilaalinayo sida loo qiimo gelinayo
muxuu ahaa ayuunbaa runtii muxuu ahaa ay dardargeliyeen horeba u jirtay waa uga mahadnaqaynaa arrintaas ganacsatada reer Soomaaliland haddaanu nahay dadka dhaqaalaha qaranku waxa ay deeshidaal ma lihin khayraad kale ma lihin waxay naga dhaxeeyaa hantida yar ee dukaamadii bakhaarada taala ayaa naga dhaxaysa ninka ganacsadaha ee hayaana dee masaariif buu ka qaataa xukuumadduna cashuur bay ka qaadataa cashuurtaasu ma dee dadka inta kalena ay ku nool yihiin marka hantidaynu leenahay horta waa taasi ha la fahmo kow sidaa aawadeed muxuu ahaa waa arrin runtii annaga ayaa runtii uga nugul cid walba muxuu ahaa in deganaanshaheena iyo dawladnimadeenna inay muxuu ahaa ciirciirto ay dhibaato ku timaado ninka waxayaa uga nugul sidaa aawadeed waa uga lex jeclo badan lahay cid walba wixii qarannimadeenna dhisaya ee xoojinaya muxuu ahaa in la qabto waa uga lex jeclo badan sidaa aawadeed horena waa ugu macaamilaynay imankana waa ku macaamilaynaa waa sii xoojinaynaa oo waa dhiirigelinaynaa waa muxuu ahaa intii awoodda iyadaa waa muxuu ahaa waanu ka haynaynaa shilinka Somaliland sablayga badan ee suuqa gelaya sidaa dawladda u ballan qaaday muxuu ahaa imankaba dee rag badan oo ka haya ayaa jira nin walba karaankiisa intuu yahay waa ka haynaynaa waa ku dadaalaynaa intii aanu awoodnana muxuu ahaa lacagta adag ee muxuu ahaa aanu hayno inaanu suuqa runtii soo gelino oo wax lagaga qabto iyadana waa ku dadaalaynaa haddii allahu yidhaahdo sidaa muxuu ahaa aanu isla qaadanayna waxaan isleeyahay kol haddii la iska warhayo oo xukuumadda iyo ganacsatadu tala joogtaa ay ka yeeshaan maantana maxaynu yeellaa iyo halkuu maraya waxay naga xumaanayaan ma jiraan kala maqnaanshaha iyo iska warhayn la'aanta ayaa keenaysay arrimaha in badan waxaa runa in badan kuma salaysna qiimo dhaca ku imanaya shilinkeenna kuma salaysna baahida badan ee doolarka kuma salaysna ee war la'aanta la iska warlaayahay ayaa inta badan keenaysa ama hadal ruumara oon jirinoo suuqa la geliyo ayaa marmarka qaarkood uu ku qiimo dhaca sidaa aawadeed marka la iska warhayo ee la ogsoon yahay kolba halka xaaladdu marayso muxuu ahaa laga wada tashado wixiina noqda wax transparency oo la isla wada ogsoon yahay waxba inaga xumaan maayaan marka runtii ganacsatada muxuu ahaa iyo guud ahaan anigoo ah gudoomiye rugta ganacsiga Somaliland waxaan u soo jeedinayaa nin walba inuu ku dadaalo muxuu ahaa inuu muxuu ahaa pocket money-giisa iyo daily use-kiisa uu Somaliland shilin ka dhigto oo ushado arrintaas isbedel weyn keenaysa oo marka muxuu ahaa jeebadaheenna iyo guryaheena iyo bakhaaradeena lacagtu ay taallay ku nagaato ay muxuu ahaa ay sidaa u filiqdo ayay qiimo yeelanaysaa mar kasta oo baahida circulationka iyo wareegga lacagteenu batana ee baahideedu badatana qiimaheeda kor u kacaya mar kasta oo ay ka soo ururtay gacmaheenna iyo guryaheena iyo bakhaaradeena ay ka soo ururto oo baanka ku soo ururtana qiimo dhac baa ku imanaya sidaa aawadeed muxuu ahaa qof waliba waxbuu hayaa ninku muxuu ahaa hadduu awooddiisa muxuu ahaa pocket money-giisu maalintii ay 10 kun yihiin intuu dhowr dollar isticmaali lahaa dee 10 kun isticmaalo oo 10 kun jeebka ku haysto sidaa marka la yidhaahdo ayay runtii waanay ka baraka badan tahay muxuu ahaa qofka aad siiso 10 dollar waxaa laga yaabaa inaanu waxba warag laakiin haddaad siiso 70 kun wax weyn buu arkaya taana niyadda ha lagu hayo oo waxaynu is siinayna iyo waxaynu isku caawinaynaa iyada aan ka dhigno aad iyo aad baan runtii mar labaad muxuu ahaa ganacsata ahaan muxuu ahaa qaabka dawladdu ay u maamulayso aanu raalli uga nahay waxaanu ka hakranaynaa ma jirto warka ruumarka ee aan jirinna runtii muxuu ahaa qolada warbaahintana runtii dad qiimo labaatiin xukuumadda waaweyn ee qaranka ka mid tihiin in had iyo jeer muxuu ahaa arrintaa warka dhiirigelinaya ee wanaajinaya la fidiyo oo la kaxeeyo hadalka aan la hubin taa wax yeelayana runtii muxuu ahaa la joojiyo waa run oo waa dhab muxuu ahaa Somaliland shilinka inuu leeyahay doolarka ma lihin dhaqaalaha dalkeenu kolba wuxuu ku xidhnaanaya inta qiimihiisu yahay hadduu bari toole muxuu ahaa uu 6 kun tago shilinkaas waxa weeye mid dhaqaalaheena ku kordhay hadduu 8 kun tagana waa waxa weeye mid dhaqaalaheena ka dhacay arrintaa waan iskula qanacnay talaabooyinkeedii iyo qorshayaasheedu maanu ka wadnaa waxaan isleeyahay kol haddaan lugtiis la helayna wax naga xumaanaya ma jirto assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waa mahadsan tahay Faisal Fiifo laakiin waxaan u malaynayaa xogta dhabta ah suuqa inaan haynin wuu jiraa suuqa madow laakiin waa 7500 ma galabta la kala siisanaya marka doolarka qofka doonaya waxaan waa qorshe ma hawl yara hawsha lagula dagaalamaya waxa laga soo kaxeeyay 9000 halkay maraysaana imika waa 7500 muddaduna waa muddo yar oo kooban waxaan aaminsanahay marka loo arko muddada kooban hawshan wadnay inaanu dadaal badan galnay inay nala shaqeeyeen baacmisharku in shacbiga reer Soomaaliland ay si wada jir arrintan uga shaqeeyeen insha Allah Abdullaahi Kariim inta yar faraqay dhiman ee u dhaxeeya imika suuqa madow oo aad arkayso imika $100,000 bay baacmisharkan imika aad arkayso ay geliyeen suuqa oo ay ku soo sameeyay ay ku cashuurinayeen alaab raga qaar baa $300,000 shalay sarftay oo kaliya marka gradual waxaan waxa weeye wuxuu u soconayaa si slow imika wuxuu marayaa 7000 galabtii ugu dambeeyay 7500 suuqa madow la sheegaya inana waxaynu u qeyray gacanta koowaad 6800 ilaa 7000 ayaan gacanta hore gacanta damanayo maxaa u dhaxeeya waa 500 halkeenu ka soo kaxaynay oo from 9000 muddo period-kaynu wadnayna waa wax yar oo gaaban waxaan ku leeyahay waynu ka baxaynaa waxa la doonayaa saxaafaddu inaanay buunbuunin warka beenta imika waxa tiri waa 9000 galabta warkii ugu dambeeyay baan kuu sheegaya iyo sarifka halku marayay marka waxaan jeclahay anigoo aan idin dhaliilayn waan idinku kalsoonahay inaad tihiin rag jecel wanaagga iyo shacbiga reer Soomaaliland iyo dadka danyarta ay inuu hiliyaan laakiin waxa fiican had iyo jeer inaynu ka duulo xaqiiqada iyo magaalada dhabta jirta waxaan ku leeyahay xaqiiqadu waa taan kuu sheegayo dadaalkuna waanu wadnaa waxa dhiman intiini runtii muxuu ahaa arrinta aad sheegaysa hadday jirto oo jirto ganacsade masalan shay doolarka ugu qiimaysan 90,000 ku bedelaya waa gef arrin ay isku sameynayana maaha dalkana xeerar baa yaala waxaanan qabaa ma jirto nin ganacsado qaabka u dhaqmo muxuu ahaa mid baa se jirta had iyo jeer dhacda masalan marka la maqlo doolarka u kacay ganacsatada wax soo dejiso doolar wax ku iibsa iyo ganacsatada wax ka sii iibsado shilin ku iibisa bay runtii u qaybsay had iyo jeer waxa kaceen hadhow soo noqon waxa shilinka lagu iibiyo oo muxuu ahaa marka doolarku kaco la raaciyo hadhowna aan dib u soo noqon arrimaha kale muxuu ahaa dawladaha hoose iyo maayirada iyo baa runtii muxuu ahaa ururadaas iyo ay tagaan lagu wacyi geliyo iyagana ay u baahan tahay midna waxa weeye dhaliil ay leeyihiin reer Soomaaliland dhaliil ay leeyihiin dhammaanteen aynu wada leenahay qofka waxa lagu oranayaa waxaan qiimaha loo sheegaya waxa loo waxaas waa sidaas qofkii wuxuu ka degdegsay shaygan inuu iska baayo yiraahdo sidoo ku noqdo meherad baan leeyahay haddaan masalan kiishka sokortaan ka siinay shalayto $20 aroorta marka aad joogto ku raado 30 haddaad tiraahdo waa iska jiidato ganacsado marka hore hay'ad sabafala ma ahay waxa weeyaan interest buu raadinaya haddaad aqbasho inaad ugu siiso waa inoo ku qaadanaya waxa weeye waxyaabaha ay ku gedisanay waxa weeye waxaynu nahay dad muxuu ahaa runtii muxuu aan oran karo israaf ku sameeya sida wuxuu lacagta u adeegsanaya ayaynu nahay marka waxa weeyaan taas muxuu ahaa runtii waa arrin aniga danteeda ka soo horjeeda ganacsada markaan ahay laakiin waa behavior iyo dhaqan aynu leenahay qofku muxuu ahaa waxaasaa la siiyay yahay marka taa waxaan odhan lahaa runtii arrin aan isu gaara iskugu dhaliilayna maaha arrintaasna waxaan is leeyahay dadka waxiibiyaan ka mid ahay ma jiro muxuu waxa de sarifku wuxuu leeyahay gacan hore iyo gacan dambe ganacsaduhu markuu lacagta muxuu ahaa shaygiisa lacagtu isleey suuqa waad kaga soo helaysa ayuunbu runtii uu garaaca marka galabta muxuu ahaa 7500 uu sii ku sheegay ayaa wixii qofka kaash marka laga iibsanayo lagu qiimeeyo laga qaaday